السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشنكي ومن نجيب ويا أصحابتي ظهور أصحابتي ضد ياد بيني سلامية إن أرنت إيران مانتا إنه وذوحوية ما شاء الله إن ما شاء الله مليسية شوة وأسف حاجي لده ما شاء الله ورتا أنا وان تاجرة ما شاء الله وحن كنت تاجرة عقل جيسة iyo samirkiisa ayaan ku taageeraa qofka bini'aadanka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala dib haduu u keero oo dibta ku qanacsan yahay ma sha Allah baa la yiraahdaa marka anigu horta taasan ku taageeraa waana inaan ma sha Allah ya marka barnaamijyada soo daayeen waan daawadaa sida kan hadeer oo kale sagan ka soo qaatay barnaamijkan oo kale hadeer anigu sagan ka soo qaatay meeshiisa aan ka soo qaatay sagana ka hadlayo gabadha soo qaatay gabadhan waxa weeye gabadh ma sha Allah naafa ah weeye marka maadaama ay naafa tahay dadka naafada ah sida loo calaashan farta loogu fiiqayo sida dadka looga dhex saarayo haduu qofku indhool yahay haduu curyaan yahay hadii kale baan ku soo tusaale qaatay anigu wixii kastana wanda wixii de calaashan aniga igu wax igelinaya inaan daawado ayaan jecelahay because aniguba dadka naafada ah وانا كميد أهاي كمينة ميدهي وان كميد أهايو هويا لغو حنون السبان أهاي بالعادن كان عن دحشوغو وولينا الصوماليدو ويقول تلمامان لوك تاير حنون السا يقول تلمامان أنا وشالي أرديي وقدر يقول تميد أي يرادن عريان تالاب تقدان عريان تسداسة مركا الحمد لله رب العالمين مركا هذا الكيان كوكو بادين إلى داوتي ويلكاسي بان شعالها هدي لهاي كدو أنا نقول المتهوس كريوتو رادي حوكاغا أو صعق هلا استاجين وليغا dadkaada ku haysameystaan ulays ka reeba dabaysha kaasoo u sahlo in ay wax waliba qabsadaan qosolkaaga dunida dhan ha bedelo laakiin qosolka adduunka ama kuwa dhaqayrada yuna bedelin go'aamadaada gurigan ayuu kugu reemin haddii aad tahay qof disable ama sida idin muuqato qofkii hadda igu keenay meesha aniga wiilkan ila fadhiino imaanay wuxuu dhahay aniga goortu anigu weydin lahaa waxaan u baahanahay inuu weydiyo qofkii kale ee agtadiya taasina waxay ka mid tahay sifooyinka qofka naafada ugu yeesho yani ugu liido arrinkan ay jeedana waxay ka mid tahay qaabka qofka naafada markii la arko loogu malaynayo inuu isreexi karin ama gaariga isku badi karin halkuu jecel yahay uu tegi karin adigoona lagu weydin baa lagu dhahayaa waxayna horey kuu sii riixay wuxuu sii saaciidayaa lama weydinayo qofkan rabitaankiisa keliya waxaa la arkayaa lugaha uusan qabin iyo socodka uu socon karin iyo halka uu taagan yahay السلام عليكم ورحمة sida aad u jeedaan su'aalaha arrinkaasna waxay ka mid tahay su'aalaha qaldan oo qofka naafada la weydiiyo laguna niyad dilo dabeecadiisa iyo weliba socodkiisana gadaal u dhigo waxaa lagu dhahayaa meel haddii laga horimaado sidan yaa ku yeelan waxaasna waxay keenaysaa hoos u dhac taasina dad badan oo naafa ah ayay guryaha ku dhaabtay waaw waan qurux badanahay xaq ayaan u leeyahay inaan farxo
isqaad kor isku tus dadka si ay u ogaadaan inaad xaq u leedahay in aad labisatid inaad cuntada ugu macaan cuntid inaad dhashid ubadka ugu qurux badan inaad ku noolaatid meel walba meesha ugu quruxda badan ha istusin inaad naafatahay ku raaxaysan noloshaada farax waan ogahay inaad qurux badanahay maasha allah muuqaalkeena saarajeynayo intiina badanaa waad fahanteen maasha allah waxaan jeclaystay inaad muuqaalkaas aadin maasha allah waa daawanayseen wiilka asad xasiin la yiraahdo ayaa soo daayay muuqaalka waxaan tusaale ugu soo qaatay muuqaalka qofka bini'aadanka ah hadduu curyaan yahay hadduu indhoolo yahay meel kasta laxaadkiisa meel kasta uu ka xun yahay ilaahayga subxaana watacaala ilaahay waxba uma waayin anigayga hadda kula hadlaya dhabarka ay kala baxay ilaahayga subxaana watacaala waa ii kabay xag rabbi ba alla iiga kabay anoo laleeyahay caalamka meesha ugu dhakhtarka fiicneed ayaad joogtaa ayaan dhakhtar i kabin oo jarmal i kabin oo meel kale i kabin rabbiba i kabay lugta ay kala baxsan qofkii aan alaab israado ka iibi ama wax ka iibi israado wuxuu igu yidhahdaa naagta curyaanta ah oo alaabta gadda marka walaalkayow muuqaalkan aduu kugu socdaa iyo walaashayey qofka walaalkaaya ama indhoolo ha ahaado ama ha lug la-aado ama ha gacan la-aado istaanta ilaahay u keeno inaad ku cunsuriyeysid maaha hadda maxaa la yidhi waad qurux badanta yaa kuu qobeeya yaa noo qobeeya waanu qurux badannahay ama waanu fool xunaya yaa noo qobeeya adigaagi walaalkaaga walaal aanu kaa dhiganaynay ayaana cunsuriyeynaya oo curyaannimo nagu cunsuriyeynaya yaa noo qobeynaya allah sida ilaahayga subxaana watacaala lixaadka kuu siiya ilahay lixaadka ii siiye sida ilaahayga subxaana watacaala caafimaadka kuu siiya ilahay caafimaad ii siiye marka cunsurinimada iska daaya Soomaaliya cunsurinimada iska daaya qofkan walaalkaayo gaariga lagu riixayo ilaahay waxba uma waayin shalay wuu cararayay wuu ordayay qadartaa yar baa ku dhacday